markana magaalada Hargeysa oo Dr. Saad Cali Shire wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland oo BBC-du ay ka wareysatay dacwadii Soomaaliya ee toddobaadkan ay u gudbisay golaha maanka ee qaramada midoobay iyo heshiiskii dekada berbera iyo saldhigga militariga ee Imaaraadka ay la galeen ayaa waxa uu ku celiyay Somaliland iyo Soomaaliya inay yihiin laba waddan oo daris ah oo aan shughul isku lahayn oo kala gaar ah. haddaba si tafaasiil arrintaasi uga helo ayaa wariyaha BBC-da Cabdullaahi Jaamac waxa uu wareystay wasiirka oo marka hore weydiiyey waxa ay Somaliland kaga jawaabayso Soomaaliya oo caalamka u bandhigtay heshiiska saldhigga iyo dekada berbera in uusan ahayn sharci. dacwadaas runtii nama khusayso waayo dacwadda ay Soomaaliya ka jeedisay ay ku dhaleeshay ciddii waxay nala gashay innakaba maaha midna khusaysa iyagu kama taliyaan dalkan Somaliland waxa ka taliya dawlad dadku ay doorteen waa wadan dimuqraadi ah oo degan oo jecel inuu jaar wanaag iyo nabad kula noolaado jaarkiisa Soomaaliya saasaynu jecel lahay inaan kula noolaano waa nasiib darro runtii in waxyaabo dhaqaale la xiriira oo nolosha dadka la xiriira inay ka dacwoodaan oo maanacaan taas runtii waxaan risq maana waa inay si kala fogeynaysa labada dal ay soo dhaweyn mayso intii dacwadahan iyo murankan soo baxay cidii la soo xidhiidhay ma jirtaa oo idinka codsatay inaad joojisaan inta bal muranka meel la dhigayo hawlaha la wado horta cidina xaq uma laha inay nagu amarto inaanu joojinayno heshiisaan la gallo dee cid kale xaq u leenahay inaanu la gallo maya taas ma dhicin dee inay dhacdana maba haba runtii xiriirka qaramada midoobay iyo dawladda Somaliland ayaamahan dambe warar baa soo baxayay si ay u jiraan baan la garanayn in la leeyahay Somaliland iyo qaramada midoobay madmadow baa soo kala dhex galay xiriirkoodii arrintaas maxaa ka jira wax madmadow oo soo dhex galay xiriirka Somaliland iyo Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa hay'adaheedu ma jiraan waxaa jirta in saxaafadda lagu soo qoray maalin dhaweyd in dawladdu in madaxweynuhu u saaray guddi arrinka ka soo tala bixin doonta oo ay doonayso Somaliland inay ka saarto hay'adaha Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa wadanka arrinkaas wax allaaliyo wax ka jiraan ma jiraan raadiyo saltoona malaha Somaliland Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa waxay leedahay cilaaqaad wanaagsan bay la leedahay way soo dhaweynaysaa cidii aan sharcigeeda aan ku xadgudbeynin shalayto saad maqlaysay idaacadahan ka dhageysanaysay maamulkii hawada sare shaqaalihii Soomaaliya ee maamulkaasi ka shaqeyn jiray hawada sare ee Nairobi joogay waxa loo raray magaalada Muqdisho marka dawladda Soomaaliya waxay sheegaysaa hawadii Soomaaliya inay saas kula soo wareegtay arrintaasi Somaliland maxay ka ogtahay Somaliland hawadeeda iyo baddeeda iyo dhulkeeda midna lama wareegi karo wax la wareegi karaa ma jirto Somaliland ba ka talisa hawadeeda insha Allah arrinkana wuxuu kamid ahaa arrimadii aan ka wada hadal jiray taxanii wada hadal taxanaha ilaa 2012 wax badanna waynu isla soo qaadnay waxna waanu ka heshiinay heshiisyadii way ka baxeen wixii ridal ficiliyaan ka yeeli doona insha Allah dhawaan baa la maqli doona saldhiggii militariga ee dekada berbera iyo maalgashigii dekada berbera dad badan baa isweydiinaya miyay socdaan miyay taagan yihiin horta labadooda way socdaan oo dekada maamulkeeda imika wada gacanta waxa ku hayay sanadkii ilaa muddo sanad ku dhow waxa ku haysay DP World baa ku haysay shirkadda keen wada leenahay qodada DP World dekada ballaarinta design-keedii waa la dhameeyay wuxuu baa dhiman dhagaxii baa dhiman insha Allah kaana wax la bilaabi doona sanadkan bartamihiisa beeska laftigiisa runtii hawshiisu way socotaa wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Saad Cali Shire